بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة كوبان محاضرة مساجد كان بركيسان runtii calaamadda dacwada u ah. waxaan doortay inaan ka hadlo mowduuc ahamiyad weyn leh oo la yiraahdo kayfa nujaddidu iimaanana, sideen ku cusboonaysiinaa iimaankeenna. shay kasta wuxuu u baahan yahay in la cusboonaysiiyo. waxaa igu dhaliyey inaan mar walba mowduucan aan baryahan isku dayo inaan ka hadlo. maalin waxaan u malaynayaa khudbadii hadda u dambeysay, jumcadii ka horreysay ayaan khudbad jumcaan akhriyey. khudbada jumca kadib baa waxaa ii yimid wiil waddanka China ka yimid, waa Shiinays ama Chinese, soo islaamay oo muddo aan badnayn muslin ahaa. marka waa nin arday ah, jaamacad caan ah dhigta oo gobolka Minnesota ku taalla. marka khudbadii buu yimid. khudbada kadib buu yiri waxaan rabaa inaan su'aal ku weydiiyo. su'aashu markii uu weydiiyaa sidan ahayd, wuxuu yiri anu mar dhowaan soo islaamay, waxaana la ii sheegay markuu qofku islaamo dembigiisii hore oo dhan waa laga dhaqaa. waxaan hadda hubaa buu yidhi haddaan dhinto inaan janno gelayo. haddaan laakiin sii noolaado oo aan dembaabo oo aan muddo kadib dhinto, inaan janno gelayo iyo inaan naar gelayo ma hubo. maadaama hadda iimaankaygu uu fresh yahay, uu cusub yahay, haddaan hadda isku dayo inaan dhinto saan janno u galo ma dembi baa? macnaha si aan jannada u galo inaan isku dayo inaan dhinto. marka laakiin maxaa su-aashaas lagaga qancin karaa? marka su-aashii markii waan uga jawaabay, wuxuuna itusay inuu jawaabti ku qancay. muhiimadduna waxay ahayd jawaabtu qofka muslimka ah adduunkan wuxuu ugu nool yahay inuu aakhiro u shaqaysto. noloshaadu mar kastoo dheeraatana ajirkaagaa badanaya. maanta haddaad dhimato adoo muslaamnimada ku cusub, iyo haddaad dhimatay 30 sano kadib adoo intaas muslim ahaa, isku darajo jannada kama gelaysid. maadaama oo daarul camal ay tahay, maalin kastoo maalmahaaga ka mid ah fadli iyo ajir baa kuu ziyaadaya. marka waa inaad tamanidid inaad wax badan noolaatid sidii aad ajir badan u shaqaysatid. waxaa middaa dheer qofku inuu isdilo ama uu damco inuu dhinto suu janno u galo, macnaheedu maa inuu janno gelayo. hadduu isdilo waaba ehlunaar, naar buu gelayaa. hadduu tamaniyana arrinkaasi ma bannaana ilaa inay duruuf mararka qaarkood jirta ma ahane. su-aasha marka wuu ku qancay. marka waxaa isweydiiyey, ninkan ka baqaya iimaanku inuu duugoobo oo hadda shaati intuu soo gatay camal ka baqaya shaatigii inuu duugoobo, innagana ay dhici karto muddo badan inaan muslin ahayn, miyuusan u baahnayn iimaankeennu in la dhaqo oo la cusboonaysiiyo oo aan isku dayna inaan kiib garayno iimaanka saan jannada u gallo? waxaan ka hadli doonaa marka 4 qodob oo muhiim ah. qodobka koobaad, ahmiyatul iimaan. horta iimaanku qiimaha uu leeyahay. qofku shayga qiimihiisa ma garto ilaa uu fahmo shaygani valuega uu leeyahay.
qodob ka labaad aan ka hadlay waxa weeye xaqaa'iqun can al-iimaan waxyaabo xaqaa'iq ah oo iimaanka ku saabsan oo u baahan inaan ogaano shayga saddexaad waxa weeye calaamaatu naqsi al-iimaan iimaankaagu inuu nusqaamay oo hoos u aaday sideed ku ogaan kartaa calaamadaha lagu garta waa maxay iyo qodobka ugu dambeeya oo ah cilaaju naqsi al-iimaan iimaanka hadduu nusqaamo sidee lagu cilaajiyaa oo lagu daaweeyaa موضوع قيبت أقرأ أهمية الإيمان حقيقة وحاء أهم ما لدى المسلم إيمانه قفك مسلم كوحا وهيستو وحا أمهم سن إيمان كيس أضو حات في رساء نعم كأذهيستو قفلو وما يقع وحبا هيستا كبي لو أذيك جيركاغا عقلكاغا مالكاغا waxbarashadaada xaaskaaga ilmahaaga gurigaaga markaad qiimayso waxa aad haysatid oo dhan ee kugu wareegsan marka hooyada iyo aabbaha lagu daro aad fiiriso iimaanka ka wada muhiimsan marka ahamu maa lada almuslim waa iimaanuhu iimaanka inuu iimaankaas muhiim yahay waxaa ku tusaysaa markaad fiiriso nusuusta sharciga arrinkaa ka hadlaya ilaahay wuxuu leeyahay وما يستوي الأحياء ولا الأموات مسنا مدنول يمد انتي حقيقة وحوية الحي من له إيمان والميت من ليس له إيمان حي واقفك إيمان كله ميت كنا وأن كان إيمان كلهين مرك إلهي وحليه ضد انتي يضد النول اسكمد مياه وليبا إلهي آيد وسود وحيري إن الله يسمع من يشاء إلهي قفك الربو حمقشية معناها إيمانك قفك أقليه ودين تقاذنية وقفك إلهي الربو وما أنت بمسمع من في القبور قف قبر كجرة وحمقشين كرتين هدي قفك أنت قبر كجرة قيلة هذا ما مقليا مايا ساسو كلا قفك انتي أكتاغن هداد ما أنت أقيلس كوا مقليه معناها هذا الكو مقليا لكن قلبي إيمانك مقليه أرنتاس أرن وين واي وحو النبي يقول صلى الله عليه وسلم حديث لقولي عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم إيمانكو وحو كدو قوبا قفك قلبي أما وحا قفك أقرصون جوفك وحا قرصون وقلبك أما محل هذا لابتا أما ماشي إيمانكو كجرى لقوضا وكدوغوبا كما يخلق الثوب سيدا مرضو ادوغودو فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم إلهي ويديست إنو إيمانك قلبي نكعصبون يسيو حديث كاس وحوري إمام طبراني وانا حديث صحيحة مركو حد كيف فكرتها نبي قاعد نحي صلى الله عليه وسلم إيمانك ودوغوبا سيدا مرضو ادوغودو ما أنت مركز مرض صوغضة تقود هايستو مرضو يقروح بضنتها ويبرقيسا لكن مركز سوق يدوبدا iyo wasaqda dhaxmarto way isbedelaysa maradaasi muddo kadib marka dhaqdo oo hadana ay duugowdo hadana ay dhaqid way baabacaysa marka dambe iimaanku qofka qalbigiisa uu ku duugooba walidaalika waxa dhici karta dadkan hadda meesha fadhiya qof walba iimaankiisu inuu darajo joogo sida dharkooda nin walba uu darajo u joogo نينا إيمان كسوا إيمان عرفية أو نظيف أو نورية أو قروح بدن نينا إيمان كسوا إيمان ضعيف أو تبردرا أو وسخيسا وي مرك إلهي ويديست إنو إيمانك قلبي إنو كعصبون يسيو وحليه أبو درداء رضي الله عنه من فقه الرجل ننك فقه سو حكمه فقه وحقر شرع عقل قوي أن يتعاهد إيمانه إيمانك سينو كور قبو تعاهدك وحال إلى هذا مركز واحد كنا ونقطه ومر البعض حرير لا يضحي دبل تشيك وسمينيس مركز سوء حجري وما نقص منه إيمانك محك النسقامي إنه فيريو مركز إسنهن مسلم بات هاي إيمان في عمل لا يضحي إسنهن مر والبا إيمانك دب وبار محا كان نسقامي محا كو زيادة حقيقة وحاء tusaale yar markaan guriga tagno caawa
oo seexato oo subax aad soo kacdo oo aad labisanayso dharkaaga waad fiirisaa hadduu jacdadsan yahay waad feeraysaa hadduu wasakhaysan yahay mid kalead ku bedeshaa waad jeegaraynaysaa waa tacaahud wey laakiin iimaanka ma jeegaraysaa ma dhici kartaa caawa markaad guriga tagtay inaad fadhiisato ood fakartood dhahdid maanta iimaankaygii waa sidee buu ahaa talo maxaa sameeyey maxaa wasakh taabatay maxaa u baahan in la dhaqo maxaa u baahan in laga toobad keeno maxaa u baahan in la dhiirigeliyo marka saxaabada nabiga waxaa ka mid ahaa cumar radiallahu canhu oo yidhaahda halumuu nasdad iimaanan kaalaya aan iimaan ziyaadsanne kaalaya iimaankeena aan kobcinno macnaha markaa way fadhiisanayaan fayatadaakaruun waxay isweydiinayaan oo mudaakaraynayaan cilmiga iyo iimaanka iyo wuxuu ku ziyaado wuxuu dhihi jiray cabdullahi bni mascuud radiallahu canhu allaahuma zidnaa iimaana wayaqiina wafiqhan ilaahayo waxaad noo ziyaadisaa iimaan iyo yaqiin iyo fiqhi xaqiiqo waxaa ah waan ducaysanaa hameen iyo maalinba waan ducaysanaa meeqeebaad ilaahay ka baridaa inuu iimaanka kuu ziyaadiyo ilaahayow iimaan ii ziyaadi waa dhahnaa inagu ilaahu lacag ii ziyaadi waa dhahnaa ilaahu xoolo isii ilaahu gabar fiican isii ilaahu xaas fiican isii ilaahu saaxiib fiican isii ilaahayow waxbarashada ii fududee waa dhahnaa ilaahu caafimaad isii laakiin ma dhahdaa ilaahayow iimaan ii ziyaadi fiiri inta aan adduunyo baryayno haddaan iimaan baryi lahayn iimaankeennu aad iyo aad iyo aad buu u ziyaadi lahaa wuxuu kaloo leeyahay saxaabigan mucaad bnu jabal markuu nin saaxiibkii la kulmo ijlis binaa nu'min saacatan nafariisi bal xoogaa aan saacad ilaahay rumayne waa mucaad bnu jabal oo nebigu jeclaa sal alla alay wasalam oo weliba nebigu jacayl kelimahan u sheegi jiray yaa mucaad inii uxibuka mucaado waan ku jeclahay yaa wuxuu leeyahay war aan fadhiisanno xoogaa aan ilaahay rumayno rumayntaa loolama jeedo aan hadda tawxiidka qabsanno ee waxaa loola jeedaa aan iimaankeenna kobcinno marka iimaanka inuu la ziyaadiyo oo laga warqabo oo laga fakaro oo weliba wakti walba aad isku daya inaad cusboonaysiiso waa muhiim waay waxaa intaas dheer waxaa jirta xaqaa'iq iimaanka ku saabsan oo inaad fahantay aad u baahan tahay xaqaa'iqda waxaa ka mid a aliimaanu qowl wacamalu waاctiqaad yaziidu biطaacaat wayanqusu bilmacaasi xaqiiqo wey iimaanku waa qowl iyo camal iyo caqiido macnaha iimaankaa saddexaas ka kooban yahay waxaad aaminsan tahay iimaanka wuu ziyaadiyaa waxa aad ku hadlayso iimaanka wuu ziyaadiyaa camalka aad samaynayso iimaanka wuu ziyaadiyaa intaasuu ka kooban yahay yaziidu biطaacaat markaad daaco samayso wuu kobcayaa wuu ziyaadayaa wayanqusu bilmacaasi macsiyaduna hoos bay u ridaysaa wuxuu yidhi alimaam amiiru اlmu'miniin haddaad maqasho alimaam amiiru اlmu'miniina fi اlxadiiث waa imaamka la yihahdo abu cabdillaahi moxamed bn ismaaciil albukhaari waxaa lihi jiray amiiru اlmu'miniin fi اlxadiiث yaa wuxuu yidhi laqiitu akthara min 1000 rajuli min alculamaa'i biاlamsaar waxaan la kulmay wax ka badan 1000 nin oo dadka gobolada culimada ka ah culimada waaweynoo caanka ah famaa ra'aytu axada yakhtalifu ma arag qof isku khilaafsan fii ana aliimaana qowla wa camala wayaziidu wayanqus inuu iimaanku yahay qowl iyo camal uu ziyaado oo nusqaamo laba isku khilaafsan ma ana arag qur'aanka wuxuu ku tusaa iimaanku inuu ziyaado waxaa ka mid a aayadda ilah leeyahy inama almu'minuuna aladiina ida dukira allahu wajilat quluubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون آيادا وحو إلهي ليهي مؤمنين تواكوا صدحا على مله مركي إلهي لحصو قلبي قوضا اسبدله وقريرا وبقى وخشوعا الله مركي مغلان الله والله وحان حسوستا مساجد كان أن جوغنو waxaa dhici kartaa badankiina ma idaan dhalanin markaan masaajidka aanu joogi jiray badankiina ma idaan dhalanin xaqiiqo waay
badankiina ma aydan dhalanin markaan masaajidkan joogi jiray nin caan ah oo caabid ahaa oo culimada ka mid ahaa oo waxaan arki jiray marka duhurka la tukado ilaa casarka ama casarka ilaa maqribka wuxuu fariisan jiray meeshaan markaasuu dhowr mar yaa meesha intaan ku tukaday ama aan quraan iyo wax ku akhrisanay yaa waxaan arki jiray asagoo dhahay allah 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 asagoo dhahaya كلمات كل علنية فيري إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الله مركي مغلان قلبه قد إثبت لها ولذلك كلمة وقع لسان قفك إلى حوية اتق الله إله حسوسه إله كعبسه الله مركو مغلو قلبه إثبت لها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا صحابة ديسا markay maqlaan kelimada aadaanka allahu akbar qulubtoodu isbedeli jirta waxaan xasuustaa markay muslimiintu ay qabsadeen baytulmaqdis ay qabsadeen ay dhulka dhan ay qabsadeen iyagoo aad u faraxsan bay bilaal bay soo qabtay waxay dhaheen noo aadaan meel markay yar ahoo utum ama taag yar ah buu fuulay wuu diiday markii hore wuxuu yidhi nabiga sal alla alay slam kadib inaanan qof u aadaamin baan ballan yaa go-aan ku gaaray cumar baa yidhi marka noo aadaan maanta ma aadaamayo markaasuu yidhi maanta waa maalin farxad leh hadduu nebigu arko wuu ku farxi lahaa waa inaad ku farxidood noo aadaanta meel buu fuulay allahu akbar dadkii meesha joogay oo dhan way ooyeen cajiib waay waxay dhaheen markuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuulullah dadkii baa la aamusin waay oohin oo dad inkastoo la dhihi karo markaasi dadka waxay xasuusteen nebiga sal alla alay slam iyo bilaal aadaankiisii iyo dikriyaadkii khayrka iyo madiino iyo bay xasuusteen laakiin waxaa cajiiba qofku markuu maqlo kelimada allah in qalbigiisu isbedelo وإذا تليت عليهم آياته مركا آيات كي صلوات الآخرية زادتهم إيمان بقوا زيادة ولذلك المنافقين تو إلهي وحوليه هاي أن آيات مركا للسود تشيو وحيدها يعني أيكم زادته هذه إيمانا وهي آيات داني إيمان وزيادة سي القرآن كالآخرين محوئدين تراي القرآن بالآخرية وحوليه هاي محد كفهمتين إيمان ميدين زيادة اسبدل الميدان كل عاي إلهي وحيري فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون كو إلهي رمي إيمان بقى زيادة وين بشارة يستاولي بقى مركا قرآن كمغلان مركا آياتها وحي شيغيان إيمانكو إنو زيادة وحكم إذا آياتها شيغي إيمانكو إنو زيادة آيات سورة الفتح وهو اللي بسودك ساعات حرجة ساعات أضق ووقت ظروف النبي صلى الله عليه وسلم وقتك كاملة حديبية مركي النبي صلى الله عليه وسلم ان قريش اي وديدان انو بيتك قالو laga hor istaagay oo dagaal lagu hadaday dagaal uu isu diyaariyay dadkii saxaabada qulubtooda ilaahay imtixaamay ay la yiraahdo 1400 nina maanta qof cararaya bajiro beeca gala oo beeca galeen oo Uthman waa la dilay saacadu aad u adag tahay la imtixaamay يا إلهي أيضا سودتي وحكمت هيد هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إلهي وامدك سودتي سكينة ذا كسودتي قلوب مؤمنين سي إيمان كود إيمان ولا زيادة بس إيمان كود زيادة مركا قفك مسلم كا قرآن كسودة يا وعدك يا وقعات كراعية يا وحيابها إن الله كسابسن يدين تيسا يمركو أرك مروا بإيمان بقوا زيادة مركو آياته وحي شيغيان إيمانكو إنو زيادة كرآده مروا البقوا آدتك وعد السو وآدو حو شيكت وحد أركيسا ضد بدن أو إيمان زيادة حقيقة واي أدريمي ساعدي قبا أدقو إيمان بقوا زيادة قفكو حقنا إيمان بقوا زيادة مركو إيمانكو حقيقة إنو زيادة ونسقامنا حقيقة وي والذين اهتدوا زادهم إيمانا مسألة الله بعض حقيقة أنا بأنا إنا فاهنا وحوية
الإيمان له طعم إيمانك وحولها أدن بوليه أدن بوليه وحول النبي صلى الله عليه وسلم ويري حديث إمام مسلم وصحيح السكوري عباس بن عبد المطلب لقوري إنه مقال رسولك أودها ذاق طعم الإيمان إيمانك أدنك سوحاء أدميي من رضي بالله ربا قفك إلهي ربي هان وقرها لنقضي وبالإسلام دينا دينتنا إسلامك وقرها لنقضي وبمحمد النبي محمد النبي هان وقرها لنقضي قفك صدح داس حقيقة كتاي وكوين تهي إيمانك ودمية صدح ذا اللفظي ما يقبر بان ما أنت أخرنا أذكار الصباح بان أخرنا وأذكار المساء بان أخرنا وعروتنا حفظينا وكوا بالعامة أدور حفظيسا وآذانك كدب دسو الدعاء الله أخريه كم جرت بالله أخريه لكن وحول بيقول إيه قفك حقيقة أهان وآمنة صدح داس إيمانك أدنك سورة دمية أدنك إيمانك مركب محل لولا جيدا نن صوفية أو حرله نن حرتيسا كميدها يا وحيري أنا ما أقان لكن السجوا وحان كشيء كده هي نن شيخ نوعها وهذا الكاس يغيري وصوفياش لكن كو قبل ياشا وحيري وسكهر دا ما أنتن وأنا رمضان مركا ركبا وحيد هن شيخ كعيو قرآن هنا لا أخري قرآن يحبي أخرناين markaas wuxuu yiri aniga quraanka markaan akhriyo intuu malab isu bedelo boo asagoo malab ay ugu shubmaa marka dhadhankiisa malabka igu noqonayo igu shubmayaan diidayaayo markaan Soomaaliya quraan ma akhriyo marka dhadhanka iimaanku saas miya quraankii baan dhadhaminayaayo asagoo malab ahaan cabaya waan muudsanaya saas ma aha ninkaas waa nin ku talagalay inuu quraan akhrino excuse raadinay laakiin iimaanka dhadhankiisa waxa laga wadaa taacada inay ku macaanaato oo islaamnimadu ku macaanaato oo wax kasta ay kala qaalisanaato oo kelimada marka la sheego xaq ah aad ku raaxaysato oo marka tukanaysa aad ku raaxaysato oo aad dhadhamiso iimaanka macaankiisa aad ku saa ugu dhagan tahay waxaan la yaabay markii nabi maxamed laga sheekeynay sallallahu alayhi wasallam sidoo mamanaanta macnaha iyo qofku soo ugu dhagan yahay quraanka la tuharrik bi lisanaka lita'jala bi quraanka degdega kada anaga hadadagsanin muu ku dhagaya markuu maqlo jacaylku uu qabo soo ka fakado ka baqaya qofkaas waa qof macaansanaya qiraa'adii quraankiiba ku dhagaya wuxuu maqla uu ku dhagaya waa qof macaansanaya wa xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam asoo ka hadlay waliba xalaawada tii hor dhadhan bay ahayd xalaawada iimaanka حديث متفق عليه من حديث أنس بن مالك نبي يقول ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان قفك صدح أرم الله جهله إيمانك كاسد الدمية معانكس صدح أرم الله هدي الله جهله هذا وحنك دهيني محل جوابه إيمانك الدنكس إيمانك يا الدمية نك صدح الله جهله أولا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إنه إله يا رسولك سكجعل هذا وحكست أو كسهري وحكست الله الشيء إله يا رسولك سكجعله كوين معناه وهذا بروح يا بعد هي ستدفيري إن مع النفط هذا وين أرجع شيء دونك ما هو قيمة بدل ما قبيل كاجا ما قيس ما هو إذا أباها ما حاس كاجا ما عرورت هذا ما والله mararka qaarkood waa su'aalaad isweydiinaysaa waxaa dhici karta hadda salaada fajrka inaad kici weydo waxaa dhici karta haddaad kacdo fiiri oo aad musqusha gasho oo aad weysaysato inaad laba ragcadood tukatay inaad ka wahsato fiiri mararka qaarkood waxaa isweydiiyaa haddii canug aad dhashay oo habeen barkii ooyo waa kacaysaa caanaha siinaysaa dheebarkaa ka bedelaysaa waa seexinaysaa hadduu isbitaal u baahdo waa qaadaysaa emergency baa geynaysaa subaxii hadduu 6 leeyahay galaas salaad doon la gaarin baad 5 kacaysaa markaasaad diyaarinaysaa
وعنقاس إلهي يرسولك يا مهم سبرك ما في رصدا وسؤال اسويدين وبهم واي مركب وحولي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أيضا تقول إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها سديد الشيء وأدونك قيمها بدن وحا عنها السنة الدنيا مركا الله فيريو بايدا سترسي انت هاسبا ليري أحب إليكم من الله ورسوله عداد إلهي رسولك انت كجعشهين وجهاد في سبيله فتربصوا اسكسوغا حتى يأتي الله بأمره حامشكم هيسان انتاس إلهي رسولك يسا كمبرجرة سفير مقارنة كسمة ما انت عم بعد جعشة هاي انت النورير سوا انتاس وذا التبليغ وبري وحنو يمد ان افتهن اوه اد او حكمة بدن مركو هالله مركا وحيري ضد وعرب وهودات مركا ونا وعدي مركا وحيري قلان وعدي markaan wacdiyaa wuxuu nin dhalinyaro waxa arkay uu safka hore fadhiya wacdigayga dhanba kuma socdo wuxuu yiri waa maqan yahay saga dhan marka wuxuu yiri waa saan gacantu saan barkan yahay waxa u malaysaa adduunka dhan inta la soo qaaday buur soo madaxa in laga saaray caloos rafaadka ka muuqda marka saan waxaan ku yiri markii aan kalimadii dhameeyay adeer adiga maxaa kugu dhacay shil mushkil عندك يسوي يري خليني يا مطوع يا ابو لحيه نكا قرك وين لا تعرف همومي ما اجد ايدانيو مشكله يستحبك ما اجد ايدا فارها قل واد مركا كفتن بدل صاحب كيرو يري همومت هذا القران كان لغا هليا همومت هذا القران كليسا marka saan waxaan iruubiye hadaan quraanka akhriyo oo hamiga ka soo dhax saaro maxaad sameynaysaa suuruubiye ayada dhan waa ka tagaya سأيدا من أخربي قل إن كان آباؤكم وفيرنا يا حسين بالماشي الشيخ أصعد فيري وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم مركان إرويري بو سأيفيري بسحوغا كجرتو إنو سوبر أروي عمل مركان لما يبو حولي يا شيخ هؤلاء الكمكم والله دخلوا كمي فجلسوا في القلب كنت أخرني يسون بهال كان أنت إيجا شبيه قلبك إيه هل كان إيجا فديا وح وينني وإنتاس أزواجكم أبناؤكم أموالكم إنتاس هل كان إيه فديا نفتي أيه سوي إنتاس إيوريرسي مركا هموم تينتن وإنتاس وآباء يا أولاد يا أزواج يا عشيرة يا أموال يا قريو اسمك صعدة وانكو رسلنا هاي iyo fiiri iyo tijaaro aad ka baqaysa inay hoos u dhacdo intaas ilaahay rasuulkiisa aad jeceshahay marka intaas hadii la isku daro ahabba ilaykum min allahi wa rasuulihi wa inaad ilaahay rasuulkiisa ka jeclaato ibn qayyim baa wuxuu ka hadlaa mufta qalbiga marka wuxuu yiri waxa jacaylka waxa lagu qiimeeyaa gabar aad u jeceshahay adoo la sheekaysanaya dhalinyaradu waxay dhahaan falan baa igu socota فلما يقصعت وحيد بلاي ناقب وشاكينيا يحيري هدي لا آدامه أو تبسطت هذا الآدم كان محوى جلال أقول عواي وحيري ناق تثبت إليه سوق سكج عشاء والآدم كان ولاد كان صوتك تجمعوها اللي ما إن صلاة دي الآذ ورا صلاة دي أدي كلها هذا مرك فيري وحقيقة واي مرك إنتاس يا جعشة إلهي رسول كيس هذا يسمى مقارنة مركز النبي صلى الله عليه وسلم وحيه وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وإنه قف أجعل هذا الصغر وحن إلهي درتي أنا أجعلانين قبيل مجرو صاحبتي نما مجرتو ولالتي نما كلا دم وكوك قال مجرتو إلهي درتي أنا أجعلها كليه ما أنت قفك إلهي درتي إنه ضد أجعل هذا وإسكواهيو مصالح كلا أي ماشي سواق القشو قفكاس اوغو ايماك صحبه كجرا marka isqiimay adiga qof aad ilaahi dirta u jeceshahay ma jira oo markaad aragtid ilaahi ku xasuusiya ma jira kasoo nabiga sallallahu alayhi wasallam wa an yakraha an ya'uda fi al-kufr ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar
markii gaalnimo ilaahay ka badbaadiyey kadib inuu ku noqdo waa inuu u karaahiyeysto sida uu u karaahiyeysan in dab lagu tuuro inaad gaalnimo ku dhacdo waa inay macnaha aad u nacdo saad u nacaysa in dab lagugu tuuro macnaha waxaa dhici karta inay isweysoo dhahdeen qofkan ma qof soo islaamayba oo gaalnimo ka soo dhex baxay mase og tahay annagaan hadda meesha fadhino oo dhan ilaahay gaalnimu naga badbaadiyey weliba wuxuuna badbaadiyey innaga oon weydiisanin oon dooranin oo wax dadaal aan ku bixinin subxaan allah waxyaabaha mararka qaarkood aan la yaabo waxaa ka mida isweydiiyo war ilaahay adiga oo aan waxba ogeyn oo aan weydiisanin oo aan waxbaranin oo aan ku dadaalin oo ay hami kugu haynin buu muslim kaa dhigay firii buu kugu siiyey ilaahaygaasi ma adduunyu ku diidayaa ma xoogaa shilmaanuu ku diidayaa ma caafimaad buu ku diidayaa waxa kala dhanba waxba ma ahanba marka loo fiiriyo ilaahayow tanaabaad isiisaye maxaa kale oo ahde haray waxyaabaha kala dhanba marka waa yar yar waay marka gaalnimadaas ilaahay kaa badbaadiyey oo inagoo weliba xaqiiqada marka la fiiriyo inagoo dadka ugu jaahilsan oo reebaadiye ay ahaayeen aabayaasheen xoolo dhaqato ah oo afrikaan ah oo aan qurxoonayn xaqiiqada marka la fiiriyo oo inagu waxaan aaminsanahay inaan nahay afrikaan ahayn laakiin afrikaanka asalkaba afrikaan baan nahay xaqiiqada marka la fiiriyo oo cawaam ahaan lahaa cawaam xoolo dhaqato ah buu ilaahayna badbaadiyey waa nicamka ilaahay noo galay buuna badbaadiyey markaasuu muslimiin naga dhigay marka ma kugu haysaa kurba aad is leedahay ilaahayow islaamnimadan hayga qaadin ilaahayow ii badbaadi ilaahu aana gaalnimo ku dhicin ilaahu dhurriyaddeeda iyo gaalnimo ku dhicin ilaahayow inuu dhaho wajunubnii wabaniya an nacbud alasnaam waa ibraahim calayhi salaam aniga iyo caruurtayda naga badbaadi inaan sanam caabudno saddexdaa qofkii ay qalbigiisa ku jirto ilaahay rasuulka saad wax kasta ka jeceshahay dadka waxaad u jeclaataa ilaahay dartii gaalnimadana waxaad u necabtahay si dab in lagugu tuurayo oo kale baad u necabtahay gaalnimada macsiyada ka mid ah macsiyadu ilaa waa dariiqa gaalnimada weeye qofkaas iimaanku dhadhamiyey nabiga sallallahu alayhi wasallam alxaqiiqa xaqiiqada waxaa ka mid ah waa midda saddexaad aliimaan lahu nuur iimaanku wuxuu leeyahay nuur nuurku waa light waa iftiin waaye buu leeyahay aayadda markaad aragtid allahu nuuru samaawaati waalard markaad aayaddaas akhriday aayad cajiiba waaye aayadda markaad tafsiirka fiirisid wuxuu leeyahay ibn cabaas aayaddan jacala allahu mathalan linuuri lmu'min nuurka qofka mu'minka abuu ilaahay tusaale u sameeyey fii sadrihi wuxuu ilaahay ku tilmaamay inuu yahay bahalkan la yidhaahdo light oo kale waa faynuuska la shito oo kale ka mishkaatku waa faynuus markaasuu wuxuu yidhi waxay ku sii dhex jirtaa misbaax misbaaxun wuxuu waa qalbiga mu'minka waa sadriga iyo qalbiga mu'minka labadaas markaasuu waxay ku sii dhex jirtaa biyo zujaajaduna waa caqiidada ku sii dhex jirtaa markaasuu weliba ilaahay markuu sifeeyey buu wuxuu yidhi laa sharqiyati walaa gharbiya galbeedna ma jirto barina ma jirto culimada qaar baa hadda waxay ku fasilaan galbeedka iyo bariga aan naqaano waxay ku leeyihiin dhinacaas iyo raashiya iyo barigaasna ma jirto dhinacaa iyo westigana ma jiro iimaankan xaggee buu laakiin jiraa ayadda fiiri bal wuxuu ilaahay leeyahay qofka mu'minka ah qalbigiisu nuurkaa ku jira masaajidana lagu qaybiyaa cajiib waaye sababta fii buyuutina adina allah waa la yidhi marka bal aayadda intaad akhriso tafsiirkeeda fiiri cajiib waa qofka mu'minka nuurka kelimada tawxiidka ee shajarada qaabka isugu xiran tahay marka waa cajiib markaasuu nabigu wuxuu leeyahay sala allahu alay wasalam maa min alquluubi qalbi ma jiro qulubta ka mid ah ilaa huwa lahu saxaabatun ka saxaabati alqamar ilaa wuxuu leeyahay iftiin sida dayaxa iftiinkiisa ah uu leeyahay isagoo iftiin ah nuurka aad yaabaysid yaa mararka qaarkood daruur baa ibaanaysa markaasay qarinaysaa nabigu sal allah alay wasalam daruurtaasu marka waa macaasida ogow qarinaysa
marka sida dayax u iftiimaya qalbigu marka iftiinkaas muxuu ku tusayaa wuxuu ku tusayaa khayrka wuxuu ku tusayaa macsiyada wuxuu ku tusayaa dembiga wuxuu ku tusayaa khaladka wuxuu ku tusayaa saxda wixii baad kala dareemaysaa marka waa qalbi nool xaqiiqo waxaa qalbi kaste oo mu'min nuur buu leeyahay nuurkaasna wuxuu leeyahay inta iimaankaagu leeyahay walidaalika waxaad dhici karta maanta waxaad inkiraysay inaad bari inkirin nuurkii ayaa yaraaday ogow ma nuurkii aan arkaynin walidaalika waxaa leeyahay qof walba qofku ka cilmi badan yahay nuurkaasaa kaga badan wixii buu arkayaa waa xaqiiqo kale waay waxaa ka mid a xaqaa'iqda iimaanka أن الإيمان ينقص إيمانك هو نسقامة حقيقة كلا واي معاوة وحال الربا مركة إن دراسينه علامات نقص الإيمان إيمانك إنه نسقامي محل وقرتا تدكو حيجعليهن مركي وحرقة شاكايو إن لده بوينتي هبل يهبل يهبل يسكا العالي هبل يهبل يسماء وهذا الكو جنرال أصنقون هذا مركي كو لما دهنو إيمانك وحا نسقامي كو عدم الاهتمام بالعلم الشرعي حداد أركتي دال عن علمك الشرعي وسن وحمي أكوهين قفك إيمانك سانوس قامي على مدى كباد واي إنما يخشى الله من عباده العلماء إلهي وحاكبق الدومديس كوى علماء يحيى ابن أكتر من الهجريبة وحويري هذا العجيبة وحويري نلت القضاء قاضي والنقضي وحان قاري درجة قاضي أو قضاء القضاء أما وحان قاري قضاء قضيه سوا جيف أوف جاستس واي قاضي عاشا كان وصر هي ما النقضي والوزارة وزير هو النقضي وكذا وكذا درجة يدرجة سوان قبتي انتاس او درجة وصاقبته وأنا شيخ بركة وراءها عالم markaasuu wuxuu aad u galay dawladda darajooyin sarsaruu gaaray markaasuu wuxuu leeyahay maa surirtu bishayin wax kuma aanan farxin mithla qowli lmustamli sida aan ugu farxo ardayga marka uu dhaho man dakarta raximaka allah yaad sheegtay allah ku naxariiste waxaa la yidhaahdaa mustamli waxaa la yidhaahdaa markii culimadii hore ay xadiidka akhrinayaan nin wuxuu lahaan jiray dhalinyaro ah oo mustamli la dhaho oo dadka warka sii gaarsiiya dadku u yeeriyaa waay dadku u sheegaa marka sheekhu markuu hadlo yuu dadka gaarsiinayaa qaylinaya dadku gaarsiinayaa sheekh sharac cabdinuur baan xasuustaa raximah allahu tacaala meeshaan buu wuxuu noogu akhrin jiray kitaab la yidhaahdo taqriib imaamu nawowi kitaabka taqriibka تهذيبك وهلك أنه أخرين جري مركا برقدي بأخرين جري مركا سوى أخرين أيا مستملق وكهلي مركا وحويري مستملق على مدى حكيمة إنه ذكي هذه وحويري ماشي أنا وحكو حسوس مسايت كان مركا وحويري من غبي أحوال قال لك عقل بدني هاي باشيخ بقى وحكا لك مستملي مركز شيخ وحوي حدثنا عدة وحانو شيكي عدة وجماعة من العلماء أرضي أن تسوفر وحوي عدة ابن من عده إنا أيوي وحمل المقعي سوي عدة ابن فقدتك وعده أها إنا كوايي الله إيكا قاد وكالواي إداف وعده أها إنا كوايي إداف ويعمل مركا هذا مستملي عن كوكاني مركا مستملي وعادة واحد شاخ مركو الله الله وحده جري مركو افتتاح بصمينيا وحو صمينيا شيخ وحو آخر إن الحمد لله وكلا مثلا أما بعد مركو مقدمة سمائية وشاخ قابلة يا مكاسو حلية هي من ذكرت رحمك الله واستراح استعمال جرين نوبي لو أكلوا يا شيخو يقولي ياث شيكتي رحمك الله معناه رجاشي سنة كوذا ياث شيكتي نوب شيك ويعمل شيخ المركب وحوليه هي wax aan ku farxay noloshayda ma arag sida aan ugu farxo markuu nin arday oo mustamli oo uu dhaho man dhakarta rahimakallah macnaha kelimada cilmiga ee uu maqlo waa adoo yiro kale adduunka waxaan ugu farxad badnahay markuu sheekhu dhaha ama bacdo kale
oo kitaabka galo ma jiro hadda inagu maxaan ku faraxnaa waxaa yaab leh cilmiga ihtimaamkiisa wuu yaraaday marka maxaa la yaraaday iimaankii baa la yaraaday marka wuxuu ku leeyahay waxaa kow ka ah in iimaanka uu nusqaamo calaamadda ugu horeysa waa in cilmiga ihtimaamkiisa kaa dhinto masalada labaad qaswatu lqalbi qalbi ingeyg inuu kugu dhaco qalbiga qalalay laa yabki ma ooyo walaa yatadabbar wax ma tadabburo qur-aanka marka la akhrinayo ma dhuuxo yasmacu alaayaat aayaadka wuu maqlaa falaa yahtazu qalbuhu qalbigiisu isma bedelo uma qasat quluubukum min bacdi dalika alla yiri qalbigiinii baa ingegay fahiya kalxijaara aw ashaddu qaswa dhagax ama ka daran bay noqotay qalbigaaga waa sidee iimaankay ku xidhan tahay masaajidda waxaan xasuustaa masaajidkan oo marka taraawiixda la tukanaya ama tahajudka ka gees oohin isqabsada waxaan xasuustaa iyada oo mararka qaarkood loo sameeyo muxaadaraad hadda muxaadaro ogow ciwaankeedu uu yahay kaalaya aan barana sida ilaahay dartii loogu ooyo dhalinyaradu marka isu yimaadaan iswacdiyaan bay ooyi jireen hadda ma jirtaa qalbi noocaas oo kale ah ma jirtaa nin dhalinyarada masaajidkan ka mid ahaan jiray berigaan ka hadlaya beri fog waay taariikhda haddaan sheegay rag baa dhahaya oo waqtigaana sheekh wadaadku ma joogay marka nin dhalinyaraha masaajidkan joogi jiray oo carabaha ka yimid oo aada u fiicnaa yaa wuxuu yii gabar buu guursaday marka gabadhu carabi ma taqaano asagana waa carab dhaqanka carabta xoogaa leeyahay marka wuxuu yidhi warniyahow naagahan caamada ah iska daaya ha guursanine maxaa dhahay markaan dhahabi ibnu kathiirka iyo kaxeelay ka guduudan miyaa marka iyadoo dictionary waday ii keentay kulaha marka wuxuu yidhi maalintii dambe anoo akhrinaya risaalo yar markaan qadiyay kadib yaa wuxuu yidhi intaan khushuucay baan ilmeeyey kitaab yar buu akhrinayaa markaasa ii soo gashay buu yidhi say u tiri buu yidhi subxaan allah ma geeri baa lagu soo sheegay ma reerkiinni yaa qof dhintay saan rubi maya maxaa la oyday saan rubi kitaabkaana akhrinayo oo qalbiga iga taabtay waryaa nin ragga iska dhig tiri nin ragga iska dhig maxaa tahay maxaa la oyeysaa nin raggaa tahay marka dadkii quluubtoodu noolayd wallaahi waxaa la yaabay mar aan xajka aadnay yaan dadka inta badan markay kacbada arkaan cadamadeeda way ooyaan qofka dawaafaya qofka aad buu u khushuucayaa markaan ka soo noqonnay oo teendhooyinkaan ku noqonnay aan aadnay baan raggii baan mudaakaraan iska samaynay markaasa waxaan ku idhi markaad dawaafayseen ma khushuucdeen markaasaa rag baa wallahi sheekh weligiisaa uma ooyin maanta aan u ooyey marka nin baa waxaan idhi adiga ka waran suuye sheekh aniga meeshaan ka imid naagaha iyo carruurtaa ooya nin ragga ma ooyo markaasi dhanku waa reemudugga waxaasoo kale loo tuuraa waxay ku leeyihin wixii xunba reemudug waay marka haddaad aragtid qalbi aan ooyeynin oo qalalan oo qur-aanka marka la akhrinayo aan dhegaysanaynin xaqiiqatan qofkaasi qalbi ma laha qalbigaa dhintay waaye marka qalbigaaga dib ugu noqo iimaankaagii aa la nusqaamay qalbiga waxaa xaqiiqada waa calaamadii labaad weeye calaamadda saddexaad aa lagu gartay iimaanku inuu nusqaamay alwuquucu fi lmuxaramaat in macsiyada aad ku dhacdo macsiyada keliya ma aha ogow zinada innaga waxaan u malaynaa macsiyo waa zino soomaaligu say u yaqaanaan laakiin macsiyo waa caasinimo alla waaye waxay rabtaa ha noqotee nabigu wuxuu lehy sal alla alay salam laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min qofka zinaysanaya markuu zinaysanayo ma zinaysto isagoo mu'mina waa laga qaadayaa iimaanka iimaanku waa dahab ogow markaa zinada gasho faaxishada waa lagaa qaadaya asaga dhan walaa yasriqu saariqu xiina yasriqu huwa mu'min wax ma xado qofku markuu xadayo isagoo mu'mina markaad bilowdo xaditaanka iimaanka waa lagaa siibayaa waa cajiib waaye walaa yashrabu alkhamra xiina yashrabuha wahuwa mu'min khamrada ma cabo marka uu cabayo isagoo mu'mina waa laga siibayaa ninka markuu qayilayo sigaarka markuu cabayo markuu macsiyaysanayo markuu xaaraanta dhiilasha asxiixayo iimaanka waa laga kor qaadayaa marka qofkaa darajadee buu ku sugan yahay hadduubu ku soo noqon waayo ka war iimaanka soo noqon waayo
هداد أركت مركا بعد حديث كان متفق عليه وهي حديث أبو هريرة وحديث كان تكاليني هداد أركت قف معصية كل عيا حبر من أحبار اليهود من علماء اليهود كمذا يا وحيري يا ربي كم عصيتك ولا تعاقبني إله يوم يقينك عاصيا أذي أنا آذن إعقاب تذكر بقى هيستا ويقول لي والله إلهي أنا جوا إجعل يهي صوت أساني سام بيالي أو سام بو إيالي سام بيده هيان مركز نك يوم فهمي إلهي بو عاصيا إلهينا مع عقابه برواقه كسي قاضى مركز وحو سيري ويكون كلا كعسنتها إلهي يوم ما نبو مركز دعيستي إلهي يوم أنا وأكو عاصيا مرول أذيك أنا عقابتي إلهي مركز وحو يدي كم أعاقبك وأنت لا تدري ما يقينك عقابي لكن أذن أوجين أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي ميانا نهين متك كحرام يلي إن أنيجا مركز إلى فقيسو أد كره حيصة الدعاء سبحان الله وحال السيبي إنه كره حيصة عبادة مركز جد كتاجن ونن كان صلاة أن نقول تكنينه شو قلبي جاني ومجوجبه هذا قفكم مركم مع سياستو نوع يرتاح نقضي نين ربع عني أما قاطع عني أما الزنا كل حجرة أما خمرة كل حجرة أما الدلية أما حمان سمينية أنت أسلق يا دي عكرت إنه تكذو وصلاة دينا أين قلبي صديرين ولا وعديو أو وعدي وص قلبي صديرين بل بوعدي حتى ضدك حمرة إنه بيرسنا وقعتان هذا خطبة آخر سو بدأ كلات قال لي وحكوا لي هي خطبة ما أنت أنا إجهليس فيري وعجيب واي معناه وحاد انتي ضميرك يجو وحقيقة مدة أفراد وحوية عدم الاهتمام بتكبيرة الإحرام هذا ارتقف عين الدن وفر إن قيمة ولا تكبيرة الإحرام صلاة دوك وما دقدقوا ما كلا جعله إنه هرجع كسو جاره إنه لبك كسو جاره إنه لقب صلاة تكبيرة الكواد وأسوه مد إيمانك سام سقامي وحال الربا إن هديد النبي صلى الله عليه وسلم وحيري حديث حسن وإمام الترمذي أوري حديث أنس بن مالك من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان قفكي أفرتن مع الموت حديث كان حوليها أفرتن مع الموت جماعة وقلت كذا الله والتكبيرة كوبات سوى جارة وحال قرأ لبا براءة لبا الشيء إنه بركيه براءة من النار نارت إنه بركيه وبراءة من النفاق يا منافق لما إنه بركيه الله قرأ لبا صلى قرأ إن مركا وحيابها سنة عن أهين نمن حرقة بابرنا لا حج نراعي مركا سوى حيدهن شيخ أنا مركا تجنو مدينة قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم مدينة وحشرت إن جوجنا سيدات بري مركا ما أنا فاهم ومحاي تاي سيدهم حرمنا لبدي منافق نمدي إن بري كنا قلنا إن شن صلاة أن ماشي كنت كنا مركا وحشرت أبدا أفرتن صلاة إن ماشي كنت كنا شايت النبي هذا ما حد سايت كلام هذه المدينة إلا جوجي ما أنا قال بدأ براء إلى أن قرنا مصنع قلنا وإن اللي بدي براء عن هلا وجو هذا السنة هان السنة مدينة إلا جوجو أنت سبري أو خصبة لكن من كان من عقل بدن من عقل بدن واي ودي أي كفكرين إن أفرتن صلاة إن تكبير تكوبات صح على الله خصب وي من ربع وعقل واي مركا إنك وربلنين كوالا قرتي إن شقا مركا كل حجيرة ضدت ظروف بيليهن النبي صلى الله عليه وسلم نك الدكان كقضية إن أما أيدع كرت إنه أرضي وحبريو أما أيدع كرت إنه ضد قضاء كلا حكومة والجران كرا مشغول هداتها وحكومة مشغول صنداي لكن كورن نك بنانك إسكتاجن أما مال إسكفر إياه تكبيرتي إنه العادين كلا جعلين وحبا خلطن سمع حبا خلطن إن مسألة ذا أفراد وحوي اللغة إيمانك إنه نسقامي تغير الأخلاق عند الغضب
qofka markuu caroodo akhlaaqdiisa isbedesha masaladan waan la yaabay markaad akhrisid qofka bini aadamka waxaa dhigata inuu akhlaaq wanaagsan ku tuso laakiin xaqiiqadiisu goorbay soo baxdaa markuu xanaaqo hadda arto qof markuu xanaaqa lacnad iyo cay iyo aflagaado iyo akhlaaq xuma ay ka muuqato qofkaasi iimaankiisa nusqaan ku jirtaa waa inuu qofku muslimka ama ilaahay xasuusto markuu xanaaqo caadifadu markay hayso qofka iimaanka aan lahayn waxaa lagu gartaa markay caadifa qabato wuu ishalmaamaa hadduu hadda qof halkaas ka dhaho tolla ayaa reer hebelhay waxaa dhici karta qofka iimaanka inuu isweydiiyo u dhaho war meesha maxaa ka dhacay laakiin midka aan iimaanka lahayn inuu dhaho nin reer hebelaa lagu xadgudbay keliya oo qofkii inuu garab istaago oo dagaalamo oo wax dilo isagoo caadifa qaada keliya marka iimaanka fiiri tagayur akhlaaq cinda alqadab qodobka lixaad التكاسل في الطاعات أما عن الطاعات طاعة أو لقى وحسده عبادات كل لقى وحسده دائرة إيمان كان نسقانا صلاة مركز تكنيسي عاجز انت لك باكو هيا إلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس مركز استاغان يقو دالن باستاغ يعني يقو وحسن يقو تعبان وحديك تقفك مركو دال وحسنات مركز قاركو حسوي ديني سا وحديك تقولي قاعد تكتي عاو كسوقات marka waxaad ka fakartay inaad jus quraan akhrisato saad sileedahay war waa hurdaysan tahay waa daalan tahay iska seexo waxaad dhici kartaa hadduu qofku soo waca inaad teedhi min la hadashid waxaad dhici karta ninka ka wahsay laba ragcadood inuu tukado intuu sariirta fuulo inuu ku jiro social mediaha teedhi min ama 1 hour inuu ku jiro marka maxaa keenay inaad ka wahsatay taacada waxa kalena aad ka wahsanin haddaad hadda nin la istaagtay halkaasoo u sheekaysan meeqa saac buu kula taagnaan karaa wax badan soo ma saacad 30 minute haddaad salaada tukatay meeqa saac baad taagnaan kartaa aniga ma dhahayo imaamyada idinkuma diraayo ma dhahayo salaada dheereeya laakiin xaqiiq waxa wax yar hadduu dheereeyo waa wada ooyeynaa odayaashu waxay leeyihiin sheekh caawa ninkaad noo keenteen muxuu ahaa waa isku kaadshay qaar baa igu dhaha odayaashu wallaahi kaadi baan cesho waayay adeer kaadida salaada keliya ku qabata maxay tahay ومركب وتكاسل وهسي واي وحان ربع قضب كسديادة وقدم بيه وحوي قضب كتضباط تغير العبادة إلى عادة إن العبادة عادة اسكن نقط إيمانك ضعيف وي وعبادة والله صلاة اسكصون صلاة اسكتكو مع الجماعة اسك حجي قف كان وحبي كمان بدليس قرآن كاسك آخري صدح مربع قرآن كده من رمضان كان وحنا كمان بدل زواج اسك عادة إنه نقطة عبادة حجابك وعادة اسك نقطة قبل أن يدعك إنه حمانتك كل شيء حجابك اسك وضعته أو شيء عادة أو اسك نقطة دينتي إيمان كان نسقان علامة ذيوتها قلبك قدام بيه وحوي الشح والبخل بالنفقة في سبيل الله قفك إنه بخيل نقضه صدقة أو نفسده وعلامات كنقص الإيمان وهذا يكتئ إنه قفك قاعد فران جري أو مركي حوجا وإيمانك سو نسقامنا وشيلنك كله حبوس بحن حتى غيرك سو كلا بخيل وحنكوص ختمة يا موضوع عن محل علاجية إيمانك هدو نسقامه waxa ugu muhiimsan waxa weeye intii qodob ee hadda aan soo maray sideedii qodob dib u mulaaxaday hadarti iimaankaaga inuu hagaago oo uu kobco waxaad ihtimaam weyn siisaa cilmiga sharciga inaad wax akhrisato inaad xalqo yeelato inaad fadhiisato inaad arday ahaato weliga Mucaad ibn Jabal kan hadaay ka hadlaynay nabi kula waa ku jeclahay markuu dhimanayay baa la yiri waqtiga suxurta subax buu dhintay oo ugu dambeysay uu dhimanayay yuu waxa la yiri buu yiri farisiya markaasuu gacmaha taagtay markaasuu yiri Allahumma innaka ta'lam anni kuntu akhafuka ilaahay waxaad ogtahay inaan ka baqi jiray markhaatibaad ka tahay inaan ka baqi jiray wa ana al'aana arjuuk haddan ku rajaynaya saacadan waa saacadii aan kaaga baqayay كسوح يري اللهم إنك كنت تعلم إلهي وحاد أجيد أني لم أكن أحب الدنيا لطول البقاء الدونك أمجع علين إنا وحبدا جوه نولو يمجرين
walaa lijaryi اlanhaar inaan webiyaal socodsiisto walaa ligarsi اlashjaar inaan geedo tallaalo intaas uma joogin walaakin waxaan u joogay lidama'i اlhawaajir maalin kulul inaan soomo wa mukaabadati saacaat iyo saacadahayga hameenka inaan la tartamo taagnaado caawa dhan saacaddan saacad ku gud iyo ku dhaafin aan ku jiro wa musaaxamati alculamaa fi xalaqi dikri fi xilaqi dikri iyo xilqada dikriga la fadhiyo inaan culimada ciriiriyo xalqadda inaan galo oo ciriir ka dhigo buuxiyo 3 sano adduun u joogay markhaati baadna ka tahay waa Mucaad ibnu Jabal marka fiiri cilmiga saa uu u jecel yahay uu saa u jecel yahay waad yaabaysaa inagu sideen nahay imaam albayhaqi ayaa nin arday ah wuxuu yidhi waan ag fadhiyey markaasaa wuxuu yidhi sheekha waxbuu yeerinayaa maantana sheekha xadiis buu yeerinayaa asaguna wuu yidhi kitaab buu saxanayaa kitaab kaluu wataa uu saxanayaa markaasaan ku xanaaqay waxaan idhi niyaho adiga you are very disrespectful ixtiraam daro sheekha waxbuu yeerinayaa wax kale aad ku mashquulsan tahay markaasuu yidhi wuu yidhi inta xadiis oo ilaa hadda sheekhu yeeriye ma taqaanaa سائربي ها سوي لحية 10 حديث بيري لحية 10 كي ما كو أخريا مع سنة كودي بي أخريا لحية 10 كي سائربي دقنا وان كل دقي سنة يا دقنا كان كاش غينا يا علم الجعيل كي أقوى فيري رقص معناه وحديدي حتى أنتوا حلقة فريين واحد عفان كله مركا سوى دقي سنة يبوح كله هذاك سمينا يا مركا وحلا يا بيسا إنك اهتمام علمي يقول أنت هذا ما لو يدعم حصوق على مساجد وين أو نين دكتور أو حديث كنت تخصصي أو تعرف الحديث تبع حلقة آخرنا يا مركب بنان كان ميكروفون كسر مقلي وحأم لا يا مركب مساجد كأنه عمرية ترى ما يقع أرضي أفر الإمام البخاري حلقة دي حديث وحفرسين تبع لي لبعض كانوا أرضي والله مركب سواق علي وحافر يا صدح أرضي يا هل أضي الدرب كتير صن وفديه الكتاب هذا الله أخرية مركا ما كان أني مساجد كنا مقال دي نسيتها مساس بقى أيضا مس رجوا ويفرستان ومسيدا نقبل على حلقه مقرنا مركا علمي اهتمام كيسا نولا إيمانك هو نولانا يا مهمة أنت أصواعي يعني محان أولى هي آيات إنما يخشى الله من عباده العلماء إلهي وحكبقى معناه وحا إيمان صح عليه وإمامك حوجين هاي وإمامك حمانت كعلي قفك علماء معنى هذا وحواي قفك ما مركزته وحبرته وقاده وقيمة يا مركز علم جاء وحكبر يا سيد إله وقبق الحيد مد الله بعض وحاد حوجسا قلبي جاء إن وخشوعه وهذا صبرتا وتشين كقادتا مركز ويراته همين كم إذا أسبوعه ساعد أما النصاع والبران دونتا إن الفريسة الأبرك عدود تكتد أو قرآن دير أو تقانيد كنت تكتد ولو جسعمها هذا أو تدبرتد أو خشوع هذا إيانا أصوح هذا السيد أو تكو أيديد أو ماشي أصبرك تاغن تا أصورته أو قبر دول تاغن قبر عاقي مركز تكبير تاس قاعد أو سأو تكتد قلبي أويا والله أنت أوي سمركز خشوع ده ورجال له في عنته مركي قلبي قاعد نوله دي بقول نقو هذا سيقان قضب كصدحات معصية إسكايلالي معصية مركا أي كوجود دعوة ويكوباب إساء وحال هذا ننكر لأن يرد الدين تسوي حافة هذه ومال يدمر ما بدأ إسكايلالي ما أنت الدمر قشو لا شيء كيسو مسان سمع أما معصية أتقشوا ويكون مات ما لما وحنكاه اللي لأن يرد أن محاضرة كجدي زينة لأن يرد أن كلاه اللي مركب وحن آذوا قال الحديث كأهيد أهيد أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة وزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك نبدأ نرى مركب سلادي كده سوحي لي شيخ حقيقة haddii uu qofku zinaystay inuusan guursaneyn naag aan soo zinaysan sax quraanka sheegay xaqiiqo waay
وأنا هذا مو حيسوق يسوي مد لصامري هذيك هذا صامرت مد لصامري كسوقيس وهذا طابت كارين بس أنا مد طابت كان تبه ليس وش مكسوي هذا من إسكده الناق بكور وحنسوي بيه أنه جاي ده إسكده دايما ودم حوسو بيني سمع كور وأنا كنت أنا إلى challenge كرسان هذا شيخ التوبول صوي حرام ما بعبيسه لكن نكدان يلا وان ku adkeeyay macnaha anu kasbaan ugu adkeynay macnaha xaqiiqo waxa ayadu say dhahayso qofka zaaniga ma guursado qof aan zaaniyad ahayn adiga waxaad fiirisaa macsiyada ha fiirinin dhalaalkeeda waxaad fiirsaa waxa ka dambeeya fiir waxa ka dambeeya noloshaadu dhan baa baabaayis maalinta aad ribo cunto noloshaadu way baabaaysaa maalinta azinis noloshaadu way baabaaysaa maalinta aad qof disho noloshaadu way baabaaysaa marka macsiyada iska ilaali masaladaas masalo waay masalada afraad salaada takbiiratu ihraamka ku dadaa intaad awoodid masalada afraad akhlaaqdaada hagaaji وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت وحان لا يابي مساجد كان يا ساد ولا قارب ساد ولا قارب وحشر ودمين إن شاء الله مساجد كان مالين شيخ عبد النور رحمه الله تعالى يا محاضرة قلب كجيدي ما غنين جوجه دو جو وحيكو صعب سنيد آيات القرآن اللي يميز الله الخبيث من الطيب كسوحو أذ واحد أخلاق ذا كسوحو ماشي عند دكسي وكول يجري ما كان يقولك يلا هذا حامي مجرو ماشان كره كسوحو يجري كربان كسو يعني صوم مريبي مركان سو صعد ماشان كره ساوحا أركيبو يجري نين داليارا oo qol ku jira oo gabadh dhalinyaro quraan ka dhageysanaya waa kaligood markaas meesha maxaa ka soo saaray quraan buu barayaa meesha galaasi waa quraan buu barayaa markaas wuxuu yiri sheekhu subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ma gabar buu la fadhiyaa quraan barayaa wallahi anoo da'daas oo Cabdi Nuur abu yiri gabar inaan meel la fariisto quraan kaligeed baro ma awoodo buu sababta nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiiskii uu sheegay sheedanka marka wuxuu aad uga hadlay akhlaaqda markii dambe marka waxaan ka xustaa waxyaabo aad ka tarkiisinay waxa kamid ahayd ونهي ان يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته ونك جيرك كشقايو ميق جيرك كو ايان درستي اما اد كو رفاضي ان جيركاغا قرخيسو انت بالروح لا بالجسم انسان اديك الروح لا قف كنت جيرك كبتيد حقيقه waa ruuxda jirka ma aha marka akhlaaqda iyo ruuxdaada iyo macaanidaada iyo raganimada iyo dadnimada way wax qiimaha ku yeelay marka akhlaaqda hagaajiso waxaad kale oo ku dadaashaa taacada inaad firfircoonaato waxaad kale oo ku dadaashaa in ay cibaadadaadu ay caado noqonin kaliya waa la tukadaa iska tuko waa inay macna ku samayso waa in salaadu macna ku samayso waa inaad tadabburto waa inaad ka fakarto tahay kaalay maxaa loo sujuudaa wajiga dhulka loo dhigayaa nin gaal ah maan dhaweyd wuxuu nin wadaadan aqaano weydiiyay wadaadka Aisha weydiiyay su'aasha samaanta la weydiiyay ugu adkaatay wuxuu igu yiri buu yiri aniga muslimiinta waan jecel laakiin ilaa hadda waxaan fahmi waay wajiga dhulka u dhigaan wajiga dhulka loo dhigayaa ma adoo taagan iska tukatid fiiri innaga caada adiga hadda caadi kula tahay kaliya in la foorso wajiga dhulka la laakiin waay ودعي كرتا إن هذا صح إلهي بأجر سجود وسجودية وسجود واقترب لكن هذا قاتا عادة وحية كان نقولنا حكمة كجرتا جركا ماشي أو قيمها بدن يا استولين إلهي استولين سا الضون ما هذا أدموجين سا أنت طول كتير بعد ولي بوحد قريسا إن أتى الضون حقرا أو مسكين الله سرّي عاود سبحان ربي الأعلى بعد هذا سجى سرّي هذا يسا أنا كنا وهوسيا فيري مركا عادة كان نقول كلي ولا سجودة ولا ركوع يا كان نقول دائما كلمات أنك جدي مسجد كشخص عبد النور يا شيء جاي صلاة دان ما عنده حاسة أنا مرة مر كشيء كينجري وإذا أدك كشيء كير هذا بقى أنت يقول دبتو كذين يا أنا ما لا أسكم رأيي وحنا غيوجا آمين له يا ما عنده ود بان مساجد بان تشي ساوحان آخريه أيدي أهيد نبي إبراهيم كشيء كينيس
إلهي فلما رأى القمر بازغا فلما رأى الشمس مركا لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين نبقى وحي آمين يقدم بي مركا صلاة كبحان وريا آمين هاي سنك يا ورمحا كودا يا شيخ ولا الضالين أدري أملي وما أنت حاجة جرت هذيك هدو حسوا إسك عادة واي إن إسكت هجنا تنجح عمل أو حسن يسيد أو مركي أم غشي ضالين آمين هذا الله أكبر مركي أم غشي الركوع ولاد ما عنده يتكلم يا وحده هي مساجد ما كافرنا اسكب بحين مشكلة ذا كان وحكم ذا ننتو كان أي هل كان بحوم غلام مساجد كلا الله أكبر ليس ركوعيا مع الإمام كان بالمصعد وإن كان تكبيرته أم بدقيسته مركي هدي عادة هدي وحس كان نقدان وانكر فاضينا مهمته وحوي قلبك قدام بينا وحوي ديقس النقاء وحصد قيسو مساجد كلية معها مساجد في الرئيس النذر لقى أرورية كلية معها لكن مساكين توحسي قرابة وحسي إيلك وحسي وحصد قيسو إلهي وحن كبر إنه إيمان نزياديو إيمان كنا عصبون يسيو أن كد ذالو إن أن مروا بإيمان كنا دب وشاقرينه أو فيرنه أو كور قبنه أو أن اسمه حاسبينه أو بشي المحاسبي إنك اللي يجري أو الحارث المحاسبي وحالي انتو بوك صاقتي يو قلبه وحو سميي ستورج انو uga camalkiisa marka habeenkii wuxuu qoraa dambiyadii maanta uu sameeyay waraaqdu meesha ku tuura qolkaas uu dhigaa markii dambu fiiriyo qolkii waxa arkay qolkii uu buuxsamay oo storage noqday waraaqa uu buuxa rasaysan war waxaanu dambi amaana galay markii iimaankaaga fiiri dibna isu fiiri jazakumullahu khayran wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh